dhacdooyinkaasi kuwa ugu nasiibka daran waxay ahayd gabar yar oo saqiir ah oo aan dambi lahayn ayadoo iskuul ka timid inay ku dhimatay digfar ayadoo basaaran xabado dadka soo riday ee aan hordhacayn oo ay baaristeeda ay wadaan hay'adaha nabadgelyada oo aan uga mahadcelinayno inay gabadha yar ay ku dhimatay oo aad u xanuun badnayd isla markii waxaa ka daba timid dhacdo aad iyo aad ee bani aadamnimada ka baxsan oo isagana muwaadin Soomaaliyeed oo 45 jir ah oo 12 caruur u dhintay arrimo ayadana aan ku wanaagsanayn dhaqanka suuban iyo diinta islaamka oo ay ka abuurantay xaalad dadka Soomaaliyeed oo dhan dhagahooda markii ayada ay ku dhacday ee aan aad ma aragtay loo jeclaysan taasina iyadana ay noqotay dhacdo in la gubo gabar iyo wiil ayaga rabitaankooda isku guursaday waalidkii gabadha dhalayna sidii dhaqanka Soomaaliyeed ee suubana ee ayaga ay u mareen oo ayaga isu ogolaadeen in dhinaca kale in soo farageliyo dhacdadaasina ay dhacdo oo muruga ay reebtay kadib markii marxuumka geeriyooday la gubay la baangadeeyay waxa mataraash loo yaqaano ama bahalka kalluunka lagu mudo xataa loo adeegsaday meydkiisana isagana laga qaaday asagoo waxa uu u dhintay baadil iyo dulmi ay tahay iyo wiilka iyo gabadha isguursaday waan maanta meel Soomaaliya ay kaga qoran tahay dastuurkeeda haybsooc wax la yiraahdo aanan jirin ee dadka Soomaaliyeed iyo Ilaahaybo agtiisa ay ka xariman tahay oo loo aanaynayo iyadana dhacdadii saddexaad gabar Soomaaliyeed oo jaamacad dhiganayso oo fadhida galaaskeedii ayaa iyadana barqacad inta loogu yimid kursiga ayada ee waxbarashada ayada ay u fadhiday in ayadana meesheedii lagu dilay oo xanuunkeedii runtii ayadana dadka Soomaaliyeed ay si aad ah u wada taabatay marka falkaas iyo dhacdooyinkaas haddaan golaha shacabka Soomaaliyeed aan wakiilka nahay bulshada Soomaaliyeed kan Zaylac joogo ilaa kan Ras Kamboni jooga inaan xanuunkooda isku si inaan wax uga niraado dawladda Soomaaliyeed haddaan nahay hay'adaheeda dastuuriga siiba golaha shacabka ayaa isoo istaajisay inaan falkaasi ka muwaadin Soomaaliyeed ka matalaadayda qaran iyo mid heer deegaanba ayagoo isugu jiraan inaan cambaareeyo isla markaasna hay'adaha nabadgelyada wixii dadaal iyo tallaabo hadda ay qaadeen anoo ku boorinayo inay haddana cadaaladda aysan meesha ka marnaanin oo fal dambiyeedkaasi dad dambiilhana aanan dhicin in la hoosaasiyo kuwa ma aragtay iyaga dambiga geystay inta ayaga meesha si aanan munaasab ahayn looga saaro kuwa kale aan lagu soo buuxinin oo ay cadaalad daradii dadka Soomaaliyeed wax badan ay ka cawdeen inaysan iman taasi ayaa waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo golaha shacabka oo leh gudiyo amni difaac cadaalad inay doorkooda qaataan xukuumadda oo durbadiiba howlgaleen hay'adaha nabadgelyada oo booliska ugu horeeyo oo aan soo dhaweynayno hadalkii ay sii jeediyeen General Bashir iyo General Barise oo intaba ka turjumaya in falkaasi dawladda Soomaaliyeed ay ka aamusin hay'adaha nabadgelyada ay daba taagan yihiin in la soo dhameystiro wixii dhibaatada geystay say darsi ugu noqoto ummadda Soomaaliyeedna aysan oo la kulmin dhacdooyinka fooshaxun ee noocan oo kale oo haday caadaystaan dadka dambiilayaasha ah kuwa kale ay galaafan doonaan taasi ayaa dadka Soomaaliyeed ee ka xanuunsadayna aan doonayaa ayagoonan kala sooc lahayn kala saar lahayn sida Soomaalinimada iyo Muslimnimada ay uga wada damqadeen ee arintan uga soo jawaabeen gaar ahaan baraha bulshada bahda miidiyaha
haddana waxaan sii rajaynaynaa inaad halkiina aad ka sii wadaan shacbiga Soomaaliyeedna isaga ayaa heeriyada iska ridi kara ee dhibaatada taagan ee maalin walba isaga victimka u ah cidina aanan iyaga kaliya aanan isdihin ayaa idin maqan ayaga ay noqdaan kuwa isu damqada isu naxa hal cadawna wada yeesha kaana ah kan nabadgelyadooda iyo jiritaankooda iyo wada noolaanshahooda sharafta leh ku ah duulaanka cid kasta ha ka socdo meel walbo aan iska dhigno caatifada ee dadka Soomaaliyeed lagu kala qaybinayo ee qabyaalada ah ee mar waliba aan aragno wajiye fara badan in la doonayo in loo adeegsado si ummadan la iskaga horkeeno taana inuu aqliga ka koro ayaan u baahanahay dambiga ninka la kaliya lagu ekaysiyo ee aanan loo gudbinin reero iyo famil iyo ummad Soomaaliyeed ee aan waxba galabsanin si haddaba ay dhacday in wiil iyo gabar is guursaday adeerkooda loo dilo wabillahi tawfiiq